wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa maanta kulan la qaatay suduwayaasha kala duwan ee wasaaradaha dalka u jooga gobolka Saaxil iyo sidoo kale cuqaasha gobolka Saaxil oo habeenkii xalay ahaa kulan la qaatay waxaanu sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland dhagax dhigay guri loogu talagalay cuqaasha gobolka Saaxil kaas oo laga dhisayo magaalada Berbera wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo warbaahinta kula hadlayay xafiiska gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ayaa ka waramay ujeedooyinka kulamadaasi uu la qaatay waaxyaha dawladda iyo isuduwayaasha kulankaasi ayaa waxa ku wehelinayay barasaabka gobolka Saaxil maayirka magaalada iyo maareeyaha dekedda caalamiga ah ee Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor ka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Abakar iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska ee Somaliland oo iyagu kamid ahaa wafdiga daladiisii kamid ahaa dawladda gobolka dhamaantood oo hay'adaha ka jira ay isu garabsan lahaayeen sidii kor loogu qaadi lahaa adeega bulshada ay u hayaan gobolka isu dawayaasha muxuu ahay gobolka ka shaqeeya sidii muxuu ahay baahiyaha jira aan xoogaa lagu noqon lahayn sida midalan leylka oo kale oo runtii dhib badan ka haysato gobolka dhinaca biyaha oo iyana sidii wax looga qaban lahaa haddii ay jiraan waxoogaa maalmo dhawti laga cabanayay dhinaca cadaaladda iyo horumarka ballaaran runtii qaadanay cuqaasha iyo waxgaradka maxaa gobolka oo iyana aanu jecel lahay inaanu kor u qaadno ama aanu u soo celino awoodda ay cuqaashu iyo salaadiintu ku leeyihiin hawlaha bulshada dhexdeeda iyo sidii ay muxuu ahay ula garab geli lahaayeen dawladda inay xagga nabadgelyada ka taageeraan iyo dhibaatooyinka yimaada runtii inaanu doonayno empower garayno oo aanu ka wada hadalay sidii ay u kordhin lahaayeen hawlaha ay u hayaan qaranka iyo bulshadaba socdaalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaa noqonaya kii u horeeyay noociisa ee uu ku maro gobolada dalka tan iyo intii loo magacaabay xilka wasaaraddaasi Cabdikariim Siciid Saalax telefishinka caalamiga ah ee On Cable TV Berbera.